aqoon isweydaarsigan waxaa ka soo qayb galay 25 sarkaal oo ka kala socday hay'adaha wasaaradda cadaaladda xafiiska xeeraalinta guud ee Puntland ciidanka booliska iyo garsoorayaasha maxkamadaha dowladda Puntland waxaana tababarkani uu socon doonaa muddo 6 cisho ka soo qayb galayaasha ayaa la barayaa casharo la xiriira xeerka ciqaabta madaniga xeerka dambiyada ka dhaca badaha iyo xuquuqul aadamaha waxaana barnaamijkan dowladda Puntland gacan ka siinaysa hay'adda ayaa gudoomiye ku-xigeenka xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ahna sihayaha xilka gudoomiyaha maxamed xareed faarax oo si rasmi ah u daafuray tababarkan ayaa ka waramay ujeedka aqoon isweydaarsigan iyo casharada lagu qaadanayo muddada uu socdo. haddaba tababarkan magaciisu waxa weeye wada shaqaynta booliska iyo xeer ilaalinta. magaca tababarka waa magaca mawduucyada lagu baranayo tababarkan aad ku baran doontaan insha allahu tacaala waa mawduucyada ciqaabta iyo madaniga badaha iyo xuquuqda aadanaha dhammaantood waa xeerar waana wax muhiim u ah wada shaqaynta booliska iyo xeer ilaalinta. waa laba laamood oo aada isu kabaya. marka casharada halkaad ka qaadan doontaan haddii aan la idmo waa kuwo idiin anfici doono kuna dabaqi doontaan shaqooyinkiina xafiiseed. Jostira madaxa hay'adda ayaa Soomaaliya oo ka hadlay goobta lagu qabanayay tababarkaasi ayaa sheegay in hay'adda amniga badaha ee midowga Yurub ay barnaamijyo badan ka qabatay guud ahaan dalka Soomaaliya. ayaa Somalia is a maritime mission, and the mandate of our mission is to help the Somali government, the Puntland government, to improve the maritime security around Somalia. This workshop is important because it's a workshop on the cooperation between the judiciary and police. We call it the whole chain from crime till court. And if somewhere in this chain there is a weak link, the whole process will collapse and will fall down. So it's important that the whole chain from crime till court is organized. And the best way to organize is to organize the cooperation. maadaama ay isku xiran tahay silsilada ka soo bilaabanaysa booliska ilaa ay maanta ugu dambeysay qofka maxkamada xukunto maadaama ay tahay wax isku xiran haddii ay meel dhexe ka go'an tahay waxa weeye cooperation ma fiicnaan marka cooperation ku fiicnaan silsiladaasina waa inay dhamaato isku xirnaan. So again, I thank the AG and his office and his staff and the Minister of Justice to give us the opportunity to support you in organizing this workshop, and I wish you all will have a fruitful and a very good workshop in which you gain a lot of new knowledge and the cooperation will be improved. waxaan aad ugu mahadcelinayaa xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda wasaaradda cadaaladda oo idin soo qorsheeyay baarkana ka ahaa in tababarkana qabsoomo idinkana waxaa idin rajaynayaa 6 bari oo meesha la joogo inaad wax fiican ka fahmi doontaan. tababarkani waxa uu qayb ka yahay tababara kor loogu qaadayay ama lagu hagaajinayay xiriirka wada shaqayneed ee booliska iyo hay'adaha karsoorka Puntland. maxamed siciid qoslaya Puntland TV Garowe.